dumarka waa laga xushmeeyaa idinkoo dad islaama maxaa idin duleeyo dumarka loo dilaa misna kufsiga loogu daray ururka haweenka qaranka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay caasimadda Muqdisho ayaa si kulul wax uga hadleen gabdho yar oo dhawaan kufsi loogu geystay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose kaasi tilmaamay inay tahay gabadh-fal isla markaana dowladda federaalka Soomaaliya looga baahan yahay in si degdeg ah gacanta ay ugu soo dhigaan dadkii ka dambeeyay kufsigaasi foosho xun. waa kuwaana qaar ka mid ah haweenka qaranka oo goobta ka hadlay. gabdho yar oo maxaan ku dhihi lahaayay 3 jir iyo 4 jir ah inaba kufsadaan oo haweystaan waa wax argagax leh. waxaad moodaa difka korkiisa inuu qiyaamii ka soo baxay oo inaan joogin adduunka aynaan ku noolayn. horta rag ma ku sheegi karno bini aadamku ma sheegi karna waxaan dhihi karnaa xayawaan ifka la keenay ayaa ku tilmaami karnaa. bini aadamku ma tilmaami karno hooyo wax dhashaanahay wiilal aan dhalnay mustaqbalan dadka kale nahay rajaan adduunyada kale nahay ragga kufsigaas geystay oo u bareeray gabdhaha dheer inta la eeg ma dhihi karno rag kuma sheegi karno waayo waxaan meel uga dhacaynaa wiilasha halka fadhiya iyo kuwan anagu dhalnay iyo kuwa gabdhaha nala midka ay dhaleen waxaan dhihi karnaa xayawaan ifka la keenay ayaan ku tilmaami karnaa. saas darteed waxaan ka codsanaynaa dawladeena sharafta badan inay hor cadaalad u fasho gabdhahaas ee ragga la soo taago tiirka. waxaan ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto oo ragga Soomaaliyeed oo wax garta madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ra'iisul baarlamaanka Soomaaliyeed golaha wasiirada ciidamada amniga ee ku shaqada leh hawshaas inay gacanta ku soo dhigaan nimanka dambiilayaasha ee falka xusuubiya oo maalin walba dhibaataynaya hooyo Soomaaliyeed ee daalaadhacaysay ee dhibaataysnayd ee la'ayd waxay awalba siiso ilmahaas yarirkaayo ay haysatay aawa ragga Soomaaliyeed quruxdoodii aawa ragga Soomaaliyeed oo annagana dhalay oo sidaan quruxda badan noo soo koriyay yaa bedelay raggii maxaase lagu bedelay ma waxaana ku tijaabinayaa misna saqiir sariir saaran ee 3 sano jiray 3 sano waa qof sariirta saaran waan wali sariirta ka degin in luntii baabuur lagu qaato duurka lala aado la yiraahdo wiil Soomaaliyeed baa soo kufsaday inteena hooyo oo wiilal dhalay oo wiilal qabaan ma ka noqon karnaa raalli. arintan soo gaartay actually it was deeply anko aad baan u hadgaraysaa maamooyinka gabdhaha iyo dumarka ka dhamaan Soomaaliyeed waxa saameyn weyn ugu gaarsiisay because it never happens wax tan oo kale la mid ah inay ka dhacdo dumaadka ilmo oo 3 jir iyo 4 jir ah oo ku dhacay taas oo kale especially ana shakhsiyan ahaan gabar 3 jir ah leeyahay oo really affected me when it markay arrintan dhacday. gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliya Batuule Sheekh Axmed Gaballe oo dhankeeda goobta ka hadashay ayaa waxay tilmaamtay in falkan uu yahay mid mashruuc isla markaana ay ka dambeeyaan wadamo shisheeye loona baahan yahay in dawladda Soomaaliya fiiro gaar ah ka yeelato arrinkan. inta waxa lagu jiray wada tashi iyo qaabkii loo wajihi lahaa dhibaatadan masiibadan qaran waa masiibo qaran oo lagu dhacday qaabkii haweenka Soomaaliyeed isugu diyaarin lahaayeen ka qaybgalka maaragtay sidii looga hadli lahaa sidii loo garab istaagi lahaa familkii ama qoyskii ay sida gaarka ah ugu dhacday oo hooyo iyo aabbo iyo walaalo iyo ehel leh iyo sidii gabdhuhu ay u istaagi lahaayeen sida caadada ahaan jirtay. waa mashruuc horena waa loo sheegay mashruucaas oo ay wataan dad ajnabi ah nala diir ahayn nala maaragtay ahayn maxaan ku raahdaa dhaqan nala diin ahayn oo soo galooti ah ayaa dalkeena waxay ka wadaan mashaariicdaasi waxay isugu jirtaa dhowr qaybood. qayb waxay mataqaanaa soo gudbinaysaa oo ay dhigaysaa meelo sahlan oo ay dhalinyarada iyo dadka maxaan ku raahdaa ee aan garaadka badan lahayn ay ka isticmaali karaan waxaan la yiraahdo maandooriska. waxaan annaga haddaan hooyanahay maanta haddaan awoodi karayno ilmaha yaryarka ah caloosha ku ceshanay laakiin kuma celin karno haddaan nool nahayna maxaan ku noolnahay
cunugaad dhashay oo 3 jir marka waxaas ay ku dhacaan nolosha ku taala maxay tahay haddaad hooyo Soomaaliyeed tahay ma jirto wax nolol aan ku noolnahay lama arko inta naftu naga baxayso waxaan noo balana inaan u istaagno isaan u ilaashan lahayn carruurteen waxaan noo balana inaan ka hor istaagno meel kastoo aan joogno in dhibaato ayna mar dambe dhicin waxaan ku kalsoonahay dadaalka dawladda waxaan aaminsanahay in cadaaladda la hor keeni doono waliba sida ugu dhaqsada badan waxaan rabnaa cadaaladdu inaynan naga daahin cabdiraxmaan kambaala som news muqdisho